arrimahan wuxuu ka hadlayo TBS-ka ah صح wuxuu ku leeyahay TBS-ka marka ugu horeyso wuxuu yiri was design inaad waddanka ku joogto ood ku shaqaysato ilaa ay waddanka conditionkaaga uu ka fiicnaanayo waddankaaga hadduu level 4 yahay uu dhahay level 4 macnaha waxaa waddankaaga nabad ma jirto dilaa jira dhacaa jira wax walbaa la isku sameynayaa shuftaa ka jirta so that means you can still stay there but macnaha looma design garaynin in green card lagu laakiin wuxuu yiri haddii conditionka waddankaaga uu yahay weli timeka haddana uu dhahayo waa dhacayaa Trump sidii hadday wiil baan ka maqlaayay dhahay group baan is aroorsan markay dadka the more ay dadka badan yihiin the more you have a chance and extend loo sameeyo waa inay lawyer wanaagsan qabsadaan oo lawyerka federal judge ayuu abiilka qaadanaya oo ka codsanaya because hadda waxaa loo ogolaaday Haiti federal judge baa Haiti hadda u approve gareeyay TBS-ka in loo extend gareeyo marka walaalahayga waxaan jeclahay inay isugu yimaadaan ayagoo badan maadaama ay wada shaqaysaan lacag isku dardaraan lawyer wanaagsan oo shaqada qaban karo inay raadsadaan oo lawyerkaas yani ay macnaha because lawyerkan wuxuu yiri they have other optionka maxaa waaye waa inay abiilkaas ka qaataan ay dhahaan anaga ma laaban karno waddankeena level 4 weli joogaa oo ku dooda taas lawyerka marka they have a chance buu yiri marka 60% inuu 70% inuu judge-ku u ogolaado marka shaqo fiican ay hayaan wiilashan ilaahay ha uga soo qaado ilaahay ha u dhameeyo cadowgana Allah ka qabto marka saas sameeya walaalahayga qaaliga amiin walaal waa mahadsantahay yarkii inoo safran rabay waxaan ugu dari lahaa waxaa la bilaabay ishak real ID haddaad haysanin ama baasboor ay haysanin safarka uu yar dhib badan yahay xisaabtaa lagu darsadaa waxaa laga qaadayaa qofkaan haysanin waxaa laga qaadayaa $45 oo diyaaradda markaa raacaysa maraykan gudihiisa you mean markaad my taas waa laakiin dadkan oo work permit-ka haystaan yani ma loo ogolyahay real ID qofaan green card haysanin macnaha ma u malaynayo in la siinayo green card haysan oo qaataan yah waa jiraan green card kaliya kuma xirno ma dad green card kama wado dadka kale waxaan ka wadaa oo sida TBS-ka oo kale ama asylum-ka haysoo kale oo weli green card-ka xareynin ma loo ogolyahay ayagan inay qaataan real ID-ga waa loo ogolyahay dad waxaa jira qaadanaya yani green card holders kaliya maaha waxaan ku hubo iyo series kaliya maaha haddaan search garanayaa sug haweenna meeshaan yes you can get real ID and but it depends on your immigration status yes dadka hadda mataqaanaa oo work visa I-94 ku qaato kale maya laakiin I-94 ka caadiga dadka haysto way qaadan karaan real ID-ga okay dadka qaar real ID-ga waxaa u malaynayaan in series kaliya loogu tago no series real ID dad badan baa qaadan kara midda kale real ID wuxuu ka dhigan yahay adresska aad degan tahay baa la hubinayaa bas macna badan ma sameynayo oo midda kale immigration status-kaagan waa lagu ogaanayaa because waxaa weeye haddii aad markaa xariisanaysay aad geysay citizen inaad tahay citizen uu soo saarayaa haddii aad markaa xariisanaysay green card inaad tahay geysay green card soo saarayaa markaa xariisanaysa haddaa I-94 ahaydna I-94 uu tusaya system marka la geliyo waa un qaab lagu ogaanayo immigration status-kaaga lagu ogaanaya real ID-gaada ما شاء الله نوكا والله
ilaahay ha u soo dhameeyo oo u ducaynaynaa bil ramadaana lagu jiraayo insha allah biidni illah waa guuleysanaya marka saas sameeyasha qofaa quurinaya hayey idriisow si salaamaya insha allah khayran ku rajeynaya marka waxaa laga yaabaa bishii hal mar inuu isoo waca lambar kale igu soo wacaa waa ka qabanaa marka waa weli meeshaan iskaga jirnaa cuntada dabaafan tahay wax saas uu ii dhahaa markasta gobolkuu ku xiran yihin wallaahi gobol uu ii sheegay ma xasuusta hadda haddee looyarkiisa adiga informationkiisa ma haysaa looyarka waaya kulligiisa haye looyarka arrintan bal kala hadal oo wuxuu kusoo dhaho iisoo sheeg because waa yarka haddii uu janis leeyahay waxaa loo samayn karaa in bond loo xareeyo bond hearing kadibna la horgeeyo immigration courtka haddii judge ku ogolaadaan lacag inta laga dhigo banaanka kiiskiisa ku dhageysto laakiin dee xaaladiisay ku xirantahay statuskiisay ku xirantahay ma qof reject la siiyo hadda removal ay u wadaan miyaa deportation ay u wadaan miyaa qof rajala miyaa qof process u socda miyaa appeal information xataa fiican adi kama haysid mogta waa garta marka waa inaad yarkana wareysato looyarkiisana la hadasho waa garta meeshuu ku xiran yahay xataa muhiim waaye marka saas sameey that's the best option say waa kusoo qoona walaalkii insha allah idris Ah, judge oo ayaan dhibid intaa life ka maqan tahay oo soo saaray ma maqashay in dal saddexaad qofka macnaha loo tarxiili karin ah. arrintaas ka hadal arrintaani waan ka sheekeynay habeenkii ugu dambeeyey lifekan ka sheekeynay macnaha waxaa waaye dadka intay qarsoodida ku qabtaan iyadoo aan maxkamad go-aaminin loo sheegin aan qofkii abiil qaadanin in inta layska wado sida hadda la geeyey koox waxaa jirtay oo 9 qof ka koobnaayeen oo la geeyey cameroon la geeyaa jirtay oo mauritanian iyo isugu jiray iyo mataqaanaa moroccan marka waddan saddexaad waa un la xiray dadkan waa hoostaa laga tarxiilay marka sheekadaas ayaa laga daba tegey waxaa la xiray waxaa la qabtay class action law suda la qabtay la sameeyey maxkamaddii waxay go-aamisay in qofka inta la qabto la iska wadi karin waa in maaragtay haddii waddan saddexaad xataa la geenaayo waa in la siiyaa option ah sababta aan waddanka u tegi karin kiiskiisa la fiiriyo aan lagu qasbi karin oo la iska geyn karin qofkii asagoo meesha dhibaato kasoo بسم gaarayso الله الرحمن الرحيم marka كنا arrintaas وعن waa laga hor داوديال istaagay برنامج Trump كان وحن كو ايجينا ورر دقدقة او اميكا صوبحية ma fahantay si fiican Ah, niyo shalay 26 shalay soo maahin ah, yaraa maxkamad lahay mhm. marka yaraa aan saaxiibnaa maxkamad lahay marka wuu tegey hiirnoo lahay markii hore waa laga soo bedelay waa kii hal judge laga wada dhigay soomaalida dhan bis markuu tegey kiiskiisaa la fiiriyey wallahi horta judge aad u fiican oo ahaa ayaan kusoo aaday ma fahanta judgeedka hadda soomaalida loo bedelay judge fiican oo ahay grandal lahaa marka aad u amaanaya yarka laakiin ka dowladda xataa asaa su-aalaha weydiinaya judgeki kale wuxuu dhahay mar walba su-aal maa u qabtaa ninkan kan oo dowladda dhahay su-aal maa u qabtaa ha uu dhahay mar walba intaas wadan oo soo maray wadamada qaar oo soo maray aa la weydiinaya ma fahante Ah, marka kan dowladda ku dhegnaaybo kan judgeka aad u fiicnay marka wuxuu dhahay balan kalaa la siiyey maalin dhaweyd marka oo ilaa bisha shanaad oo kalaa la siiyey marka wax dhibaato ma jirin oo dhahay si nabadaan kusoo baxo yiri waa gartay marka hadda xaaladda sidii hore aaday ugu fiican tahay oo ka qabashadii hore iyo oo maxkamadaha dadka lagu qabanayay iyo waa aaday u yaraatay haddeer maalmahan bilahan sax weye sax weye marka rajo fiicana iska jirto insha allah dadka individual ka lehna waxa waaye waa kulli sharci in la siiyo yarkaa sharcigan dhaweed la siiyey xitaa zoom lagu siiyey ma maqasha nooga sheekey wuxuu soo galay 2023gii marka maxkamadoo lahay mar walba maxkamadiis balan hearing aa lagu celcelin jiray marka hadda dhow ayaa dhaweda individual loo soo geliyey
bis marka zoom uu ku lahay marka zoom uu lahay marka zoomkii oo kasoo galay waa la wareystay individualkiisa jaaja garandigaas siiyeyba sharciga maasha allah marka sharciga waxaa lahay ninkan haddaanan wax su-aal kale aadan u qabin marka xaq uu leeyahay alla inuu sharci helo marka sharci sidaa lagu siiyey hadda dhow waay waxaa kasoo wareegatay wiigaa kasoo wareegatay gobolkee california maasha allah maasha allah maasha allah taasna waa jirtaa guys soo dhawaada soo waayo dhawaada salaam dhammaantiin city السلام عليكم ورني ولا شلay tulunba maxkamad laga soo galiyay marka master hearing ba imi soo galay individual bitoos iga soo tuureen marka niyo bal wax information aan u baahanahay gabadh marka xaggan joogtaa warar waa zoom ba aniga tayadu tahay marka wax information ma haysan niyo bal information baan u baahanahay gobolkee